rayn sicir barar baa jira magaalooyinka laga dareemaya gaar ahaan muqdisho suuqyadii maxaa sabab ay kula tahay sicir bararka maciishada ku yimid بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سعر برركو هذا عاد بالو دريمي لكن ولي واجري مرور بسومالي واكجري مدبدن بو كجري waxaan loo dareemay markii hore waxay ahayd muxuu ahaa waxa dhinac socday dhaqdhaqaaq kale oo dhaqaale ba dhinac socday oo ama ha noqoto muxuu ahaa wax la dhoofiyo ama hadda la koreeyo wax la soo saaro hadda asaaska sicir bararka sidiisaba dhaqaale ahaan waxa weeye markii dalabku uu ka bato maxaa la yiraahdaa waxa yaala waxa yaalana ay yaraadaan waxa kale oo sabab u noqon kara sicir bararka yani markii qawaaniinta economic theory-ga la aado waxa la yiraahdaa full employment dadku markay wada shaqeeyaan oo qof walba lacag haysto waxaa imanaya inuu dadkii ay spend gareeyaan ama ay bixiyaan muxuu ahaa lacagta ay wax ku gataan oo gadashadu ay badato annagu waa khilaafsanahay nidaamka economiga ah oo iyo maxaa traditional economic theories-ka waa dhaqanka dhaqaale adduunka ka jira oo cilmi ahaan jira waa khilaafsanahay marka ugu horeysa shaqada dadka Soomaaliyeed shaqeeya 10% ma dhamo ama dawladda ha la yiraahdo ama ha la yiraahdo muxuu ahaa private sector ka la yiraahdo muxuu ahaa ganacsatada oo aan dawladda ahayn dadka dawladda u shaqeeya kow macnaheedu waxa weeye suuqa lacag ma taalo lacag ma jirto weey waxa kale oo jira dhinaca kale goodiskii iyo serviceski ama badeecadii dadku gadanayeen iyo adeegyadii ma ku badna suuq oo dalku wax ma soo saaro annagu waxaanu nahay dhaqaale waxaanu ku dhisanahay muxuu ahaa dhaqaale badeecadaha muxuu ahaa to wax soo saarkeenu uu yahay agrarian economy wax la yiraahdo ama dhaqaale ku salaysan wax soo saar beereed xoolo iyo kalluun iyagiina ma jiraanin oo sidii la rabay looma soo saaro wax waad og tahay beerihii way iska cadilan yihiin hadda la korinaya kalluunku hadda badda Hindi oo kale waa seasonal waqtina waa badan yahay waqtina ma leh ama waa yar yahay bas because muxuu ahaa mawjadaha awgeed iyo waxyaalaha jira marka dhibaatooyinkaas oo dhan markii la isu geeyo waxa soo raaca dalku ma leh wax difaaca dadka consumerska dadka wax gata macaamiisha consumer protection wax la yiraahdo ma leh regulatory economic regulatory wax la yiraahdo muxuu ahaa dadka regulate gareeya ama qiyaas ama miisaama oo controla dhaqaalaha iyo dadku waxay cunaan dawladdu waxay leeyihiin hay'ado controla dadku waxay cuno inaysan marna kor u kicin sidaa darteed waxaa imanaya qofka ganacsadahayna waa xor halkaan waxaan ku jiraa wax la yiraahdo free market economy oo cidina aysan controlin marka meeshii uu 10% raadsan lahaa faa'iido waxa laga yaabaa 100% 50 200 inuu ku dhufto shay $10 u joogay inuu ka bixiyo $50 ama $100 ka dhigo waayo cid controlisa ma jirto hay'adihii control lahaa mechanism-koodii ma jiraanin dawladda hoose ka mid ah wasaaradda ganacsiga ka mid ah wasaaradda maaliyadda ka mid ah bangiga dhexe ka mid ah ma jiraanin wax regulate gareeya tan afraad lacagta dalka lacagteeni ma lacag dollar weey dollarka anagu ma soo saaray United States of America dawladda Mareykanka iska leh yani waa la yaabanay yani runtii dhibaato weyn oo dhaqaale meesha aynu siyaasadda ku mashquulsanahay dhibaatada dhaqaalaha iyo sicirka iyo cunada dadku cunaan baa ka daran oo aan damba loo gelaynin ilaa cid shidan cid war ka haysa iyo cid controlsha iyo cid dadkaas ma leh ma jiraanin marka waa mushkilo weyn oo keeni karta aakhirka dambana qarax muxuu ahaa bulsho keeni karta waayo ummaddu waxay cuni jirtay cunadii markay weydo awalna de economically waxaanu nahay dad wax soo saar ma hayna dad wax soo gataan watay xilban sicir bararkani hadda waqtiga lagu jiro ma dunidu ka jira si Soomaaliya oo kaliya ku eegay Soomaaliya ku eegay keenu kan dunida ka jira waa ka duwan yahay in fact adduunka corona awgiis wax soo saarkii hoos buu u dhacay shaqadii hoos bay u dhacday sicir barar ma jiro marka
waayo dadkii purchasing power awood gadasho ma leh dadku haddaysan awood gadasho lahayn sicir barar inuu yimaadaba maaha marka bangiyada adduunka bangiyada dhexe adduunka waxaad arkaysaa maalan hadda maraykanka oo kaleete federal reserve-ga bangiga dhexe maraykanka maalin weyd baan dhegeysanayay interest rate-ka wuxuu ka dhigay wax ka yar hal oo dulsaarka moogtahay marka sicir bararku markaa hoos buu u dhacaya sicir barar ma jirayo laguma hadlaynayo xataa hay-adahaas keliya yani mechanismka monitoryga ama lacagta lagu hadlaynmayo ee dhaqaalaha guud waxaa jira dad u gaara oo regulate gareeya ama saxa dadka waxa ay cunaan inaan ganacsatadu ku takrifalin oo siday rabto u gadanin annagu ma lihin waxaas oo dhan watay mas-uuliya ka ah sicir bararka raashinka iyo quutul daruuriga ee wax ligan jira factories badan waxyaalo badan baa ka ah marka ugu horeysa xaaladda siyaasadeed oo dalka ka jirta waa kow muxuu ahaa maamulka laftiisa oo aan danu gelinin ama ha noqdo dowlad dhexe ama ha noqdo maxaa la yidhaahdaa mid goboleeda oo aan danu gelinin hoosna u fiirin nolosha dadka waxaa moodaa maamulada dalka ka jiro oo dhan markii xataa dowladda lagu daro waxyaalo kale oo siyaasad iyo amni iyo howlo kalea lagu mashquulsan yahay laakiin dadka noloshiisa oo dadweynaha ah lama daneeyo arrimaha amnigu waa ka mid oo wax soo saarku hoos u dhigaa oo maalan xataa dadka wax soo saara hadda meelo badan oo cashuuraha iyo muxuu ahaa yani dhibaatooyin badan oo beerihii lagu soo saari lahaa baa jira waxaa jira isbaarooyin tiro badan iyo checkpointyo tiro badan oo laga qaadayo cashuur maalan xamar oo kale afgooye qudaarta ka baxda intaas oo waxay soo maraysaa checkpoint dowladda dhexe waa cashuuraysaa suuqa markii la keeno waa la cashuurahayaa waxay kasoo bilaabanaysaa koonfur galbeed cashuuraheeda haddaad hadda wax ka qaadid beledweyne oo rabta inaad boosaaso geysid 200 jeer baa la cashuuraya waayo 3 dowlad goboleed baa sii maraysa oo mid walba ay cashuur rabto tii laga soo qaaday tan ku xigto galmuduga tan ku xigto puntland marka musiibo weyn oo xagga muxuu ahaa nolosha ah baa halkaa ka develop gareeyay cashuuro kale iyaguna jiro oo ganacsatada ay sheegto cashuuro isweydaarsan hadda meelo kala duwan ka cashuuraha caadiga mushkilo ma lahaateen waayo dowladdu inay wax cashuurto cashuur bay dowladda ku nooshahay mogta ama mid dhaxa noqoto ama mid maamul ha noqoto laakiin cashuurta markay exaggerated noqoto ziyaado noqoto oo 10 meelood laga qaado xabadii yaanyada ahayd waxay ku imanaysaa 5,000 shilin meesha awal ay 500 ama $1,000 shilin ahaan lahayd marka waa laga dareemayaa guri kasta oo xamar ku yaala iyo dalka magaalooyinka caasimadaha dalka oo dhan waa laga dareemayaa dhibaatadaas waxayna keenaysaa muxuu ahaa run ahaantii inaan amni ahaan xataa way sabab bay u noqonaysaa waayo dadku waxay cunaan markay yaraadaan ama waayaan ama malnutrition ku dhaco dee ma deganaanayo dalku ma deganaanayo society-ga weeye waxa dejisaa deganaanta society-ga ama deganaanta bulshada yaa deganaanta siyaasaduna ku jirtaa marka waxyaalaha kaloo sababaya waxaa ka mid ah dee wax badan lamaba soo saaraba maxaa la soo saaraa dadkeenna wax soo saari jiray inta badanna waa barakacayaal maalan xeriyay ku jiraanin kuwii beeraha ha noqdeen kuwii xoolaha ha noqdeen magaalooyinkaa la soo degay waa yaryahay wax soo saarkeena waayay sicir bararka intaa inuu uga tagno dhaqaalaha xaaladda dhaqaale xilligan ee waqtigan Soomaaliya ka jirta maxaad ku sifeen lahayd iyada xaaladda dhaqaale waa fawdo waa sidoo kale waa dhibaato weyn waxa weeye economiga waxaa la rabaa inuu yahay economigu export economy ma yahay ma import economiga ma soo dejiya ma dhoofiya ma haddii alla ku runaya maalgelin ma leeyahay haddii alla ku runaya wax soo saar ma leeyahay waxaasoo dhan ma jiraanin hadda waxa weeye maalgelin macnana ma jirto sar meel laga dhisa maalgelin maaha idaacad meel laga taago maalgelin maaha maalgelintu waxa weeye waa warshad in la keeno waa in haddii alla ku run yahay beeraha la falo waa in qalabkii wax soo saarka oo sida cagafyada iyo maxaa la yidhahdaa waxay yidhahdaan agricultural inputka oo ay ka mid yihiin muxuu ahaa bacrimadu ka mid yihiin seedsku ka mid yihiin miruhu ka mid yihiin abuurka waxaasoo dhan ma jiraanin waa iska meel uun fawda ah weeye marka ma jirto wax soo saarkeenna aanu dibadda u dhoofino wuxuu ahaa xoolo labadan sano xoolahaas inta badan sacuudiga loo dhoofin jiray markii ay xajka soo dhow yahay waa sidaad og tahay xajkii ma jiro dad yar baa taga hadda sanadkan 60,000 oo qof keliya baa dowladda sacuudiga ogolaatay oo dadka gudaha ah marka xoolihii tirada badnaayo dhowrka milyan gaari jiray oo udxiyada loo isticmaali jiray
dadka xujaajta ah male lama gato xoolaheena hadda waxaa la geeya halka meel oo u furan waxa weeye cumaan markii la geeyo elsi laguma geeyo nin baa iska geynaya waa loo seexanayaa ninkii xoolaha keenay waxaa suurtooda qiimihii uu kasoo bixiyey soomaaliya iyo markii laisku daro wixii muxuu aha gaadiidka uu soo saaray wax ka hooseeya uu ka iibinaya ninka carabka ka iibsanaya marka dhib weyn waxaa jira dhinacaasa kow haddii economigeenu ahaa economy wax dhoofiya oo xagga basiga waxyaalaha ceeriin oo sida xoolahaas iyo miraha beeraha iyo waxaa la dhoofin jiray waa dhaweyd muxuu ahaa liimada qalalan male hadda suuq ma jiro lama dhoofiyo wax micnaa lagama dhoofiyo idan waxaanu nahay economy ama dhaqaale wax isagu inuu laqo oo wax cuno maahane aan waxba soo saarinin ma maqlaysaa ganacsatada wax keenta bariis baa la keenaa baasta la keenaa kulli dibadda laga keenaya anagu bariis waa abuuri jira anigu beeraley bariis baan ahaa jowhar hadda ma leh wax yaroon macno lahayn baa lasoo saaraa marka guud ahaan dhaqaaluhu waa khariban yahay aad buu u khariban yahay markaadan waxna soo saarin waxna aad rabtid inaad soo dhoofsatid oo cuntid waa mushkilo free economygii aynu ahayn oo yani unitiska yaryar dadka tirada badan oo dhaqaale ahaan freega ah waxaa hadda ay kusii socotaay oo isbedelay waxa la yidhaahdo muxuu ahaa monopoly economy oo sharikado waaweyn baa soo baxay oo iyagu wixii oo dhan dominate garaynaya siday rabaanna markaa ku gadaya markii maalan ganacsatada wax keentoo kalea ka mid ah oo kuwa batroolka keena ha noqdeen kuwa baastada iyo bariiska iyo cunnada keena ha noqdeen wuxuu kusii socdaa oligopoly wax la yidhahdo economy oo in yar iqtisaadiyaat alqila baa lagu yidhahda carabiga in yar keliya ay gacanta ku hayso dhaqaalihii waxaasoo dhanna marka waa isfulfuulayaan dhibaatadaasi waa kordhaysaa marka dambe weelka waa buuxsamahayaa qarax iyo explosion xagga society-ga ah oo muxuu aha dhibaatooyin oo mudaharaad laho amni darro leh baa ka imanaya waatay xildhibaan xaaladda siyaasadeed ee xilligan jirta iyo dabcan isdiidooyinkan ku gedaaman doorashooyinku iyagu door ma ku leeyihiin hoos u dhaca dhaqaalaha iyo sicir bararkan la dareemayo waa ku leeyihiin waayo yani xaalad aan deganayn oo fiiri siyaasaddu iyadaa controlsho waxaan hadda ka hadlaynay oo dhan waxa weeye inay siyaasadda kore ka timaado oo hay-adaha ku shaqale maalan maxaa la yidhaha ganacsiga hay-adaha wax soo saarka ku leh waxaa jiray 5 hay-adood oo wax soo saara oo sanad kasta oo guddi ah oo shira oo siyaasad leh oo siyaasaddaasi ay fusho ilaa meesha u hooseysa beerta ugu yar oo hal hagtara ilaa dukaanka tegi jirtay ma leh waxba kama jiraan waxaa lagu mashquulsan yahay waxaan cunnana soo saarayn dadkana wax siinaynin male dalka shaqaale male shaqa lama qoro waxaad arkaysaa intaasoo dhalinyaro ah oo jaamacada ka baxay oo kale xataa volunteer baan waayay inaan noqdo iskiis qof ugu shaqeeya wasaarad oo aan lacag qaadan yaan xataa la ahay buu kuleeyahay marka waxaasoo dhan waa dhib taagan oo aan dan loo gelaynin oo infact wax ka qiimo daran lagu mashquulsan yahay ma garatay inta badan badeecooyinka la isticmaalo sida adiguba sheegaysay waa badeeco dibadda ka timaada oo dalkii wax soo saarkiisii wuu hooseeya haddii wax yar ay jiraan xataa arrintaas noocaas maxaa mustaqbalka dhow laga qaban karaa iyo midka dheerba dabcan deganaan siyaasadeed horta waa in la helaa deganaanta siyaasadeed bay ku xiran tahay xaaladda dhaqaale ee dalka waa in la helaa isla markaasna la xoojiyaa hay-adaha dhaqaalaha wax soo saarka kow hay-adaha ku shaqale controolka maxaa la yidhaahdaa ascaarta iyo customer careka waxa la yidhaahdo ama xataa sharikadaha waaweyn waa in lagu khasbaa in ay jiraanin customer care dad daryeelka macmiilka oo ah inaan lagu qaaliyeyn qofka macmiilka ah oo wax gadanaya maalan gurigaagaad ka dareemaysaa waxaa lagu leeyahay wallaahi maantay muxuu ahaa kiiladii sokorta ahayd waxaan kusoo gaday intaas nus dollar bay ahayd maanta $1 bay maraysaa waa 100% burku sidaas oo kale bariisku sidaas oo kale saliidu sidaas oo kale marka waa waxyaalihii daruuriga ahaa oo bayska u ahaa nolosha asaaska u ahaa haddii aan marka siyaasadda la fariisin tanna fariisan mayso waxaa weeye siyaasadda in la fariisiyo oo electionkan lagu heshiiyo doorashada isla markaasna hay-adaha ka jira dalka ama ha noqoto heer gobol ama ha noqoto heer degmo ama ha noqoto heer federaale loo abuuro laguna kontaroolo hay-adaha
la xoojiyo wax soo saarka kow hay-adaha wax soo saar ku shaqa leh oo dadweynaha u badan sharikadaha la dhiirigeliyo muxuu ahayto wax dhoofinta la dhiirigeliyo wax soo dejinta aan la dhiirigelin waayo markii wax dhoofintu ay fiicnaato baa dhaqaaluhu kobcaya laakiin haddaa tahay dhaqaalo isagu wax consume garaynaya wax cunayo bes oo aan waxba soo saarin dee mar walba muxuu ahaa waad sicir barar iyo dhibaato dhaqaale iyo haddii alla ku reey baad ku jiraysaa hortay xildhibaane adigu xildhibaan baad tahay golaha shacabka ka tirsan aqoonna ula dhaqaalaha dabcan wax badanna way kuu muuqdaan idinka doorkiinu muxuu yahay horta baarlamanku waxyaabahan dhacaya mase loo baahan yahay hay-ado ka madax bannaan doorasho iyo waqti kala guura oo mar kasta iyagu u taagan sidii nolosha bulshada loo badbaadin lahaa ee sicir bararka iyo waxaasoo kale looga hortegi lahaa aan kala qaaday su-aalaha doorkiinu waa maxay idinka horta annaga doorkaygu waxa weeye xeer dejin iyo la xisaabtan dowladda ah haye xeerar badan waa soo dejinay laakiin waxaa muhiima xeerkii in lagu dhaqmaayo soomaalidu waatan tiraahdaa 114 aqaana qur-aanka horta kaa akhrisanaya baa ka horeysa wixii hadday noqdaan nin wax warqad ku qoran keliya xibri cala waraq ay noqdaan oo aan lagu dhaqmin waa dhibaato soomaaliduna sideeda maba jeclaba waxyaalaha oo nidaamsan oo dad uun iska reer baadiye asalkooda ahaa weeye dowlad hirgelisa oo muxuu ahaa la xisaabtamaysa dadkii ku hirgelisa maalan la ganaaxayo male yani jidadkeennaa ujeeda adigu intaan cunno iyo halkaaba la gaarinba jidadkii baa la hagaajin la'yahay jidkii baa yani hadda markaan soo socday meel walba xagga waxaa kaa soo gelaya mooto xagga waxaa kaa soo gelaya bajaaj xagga waxaa kaa soo gelaya baabuur yani nidaamkii traafikada ahaa ee dowladda hoose ku shaqada lahayd waxaan kala anahay war ha loo sameeyo a iyo b iyo c bajaajkan iska batay wax hadday tiro bataan waa xumaanayaan dhibaatay noqonayaan a 2 maalmood ha shaqayso b 2 maalmood ha shaqayso c iyaguna dhaqaalay ku helayaan dariiqiina khafiif buu noqonaya wax kasta waa fawdo wax kasta oo dhinac kasta aad u qaadid cunno ha noqoto wax soo saar ha noqdo amni ha noqdo maxaa la yidhaahdaa ha noqoto yani waxaan jidmaridda keliya xataa ha noqoto wax kasta fawday noqdeen marka annagu dowrkiina laka rabay xildhibaan ahaan run ahaantii aniga shaksiyan waxaan qabaa markaan qiimeeyo inuu aad iyo aad iyo aada u hooseeyo haddana dee waktigii waaba iska dhammaaday waxaan sugaynaa xildhibaano cusub inay yimaadaan ilahay waxaan ka rajaynaynaa kuwo shaqadooda qabsada oo dalka kan muxuu ahaa dhibaatada ka saara oo dowladda la xisaabtama dowladda haddaan la xisaabtamin bini aadanka o dhan ba haddaan uusan ka baqayn wax la xisaabtanta suu rabuu yeelaya marka xildhibaanada waxaa loo baahan yahay dadweynaha ama qabaa'ilka ama beelaha soo saaraya xildhibaanada inay soo saaraan dad garanaya waxaasaan ka hadlayno oo daryeelka nolosha ummadda soomaaliyeed muxuu ahaay ku shaqaynaya haddii taa la helo min tuulo ilaa baadiye ilaa maxaa la yidhaahdaa magaalo weyn waa hagaagaysaa waayo nidaamkii dowladnimada haddii hadda maalan guddi baa jira guddiga economiga la dhaqaalaha guddiga dhaqaalaha waxyaalahan hadda sheegayno dabcan shuruuc waa laga sameeyey baarlamaanka waa keeneen waa baas gareynay laakiin ma lagu dhaqmaya joogtayntii waxaa la rabaa marka in la dabagalo oo cidda mas-uulka ka ama wasiir ha noqdo ama wasiir ku-xigeen ha noqdo ama agaasime ha noqdo ama shaqaale ha noqdo inta loo yeero t v-gan oo kale lasoo fariisiiyo sida adduunka ka dhacda la yihahdo haye waxaa iyo waxaa iyo waxaa ayaan dhaweyd waxaa la qoray waxyaalaha maalan dhibaatada ah oo hantideeni layska boobayo maalan kalluunka hadda ugu roonaa waxaa noo haray xoolihii waa sii gabaabsi beerihiisa ad og tahay waad og tahay abaaro iyo haddii alla ku raya amni darro baa inta badan full fledged maaha yani wax yar baa shaqeeya beerihi wax yar kow kalluunkii qolo ayaan dhaweyd muxuu ahaa global initiative la yirahdo waxay qortay report bay qortay anigu waxaan ku jiraa guddiga beeraha iyo xoolaha iyo kalluumaysiga weliba kalluunka qaabilsanahay 10 jeer baan arrintaa ka hadlay sharikadaha laysima la siiyey lacag aada u yar 32 sharikadood baa waxaa laga qaaday 1 milyan waay marka mas-uuliyadda baarlamaanku waxay ahayd inay arrintaas la xisaabtanto infact waa isku daynay inaanu wasaaradda si fiican baanu coordination u wada samayno wasaaradda kalluumaysiga iyo annagu waan hagaajinaynaa bay yidhaahdeen laakiin ayaantaan maadaama fasax la ahaa reportkaas un baa hadda jira oo aan rabaa inaan haddaan laydmo wasaaradda ay khusayso ee kalluumaysiga aan kala hadlo isku soo xoori haddii hay-ad walba ay shaqadeeda aysan qabsan oo baarlamaanku ugu horeeyo xukuumadda ku xigto haddii alla ku ron yahay
dowladaha hoose ku xigaan amnigu ku xigo haddaan hayad walba shaqadeeda qabsan dalku waa sii xumaanaya hoos baa lasii aadaya marka dambena waxay noqonaysaa dee waxba maamuli kartaan waxa weeye systemka dowladdu nidaamka dowladdu waa nidaam complex oo aad u isugu xirxiran